maamulka iyo macallimiinta iskuulka Hano Academy ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay xuska maalinta xirfadlayaasha adduunka oo ku beegan maanta oo kale 15 July. xarunta iskuulka ayaa lagu soo bandhigay xirfado kala duwan oo isugu jira barashada korontada, qurxinta dhismayaasha, ilaansaar, cunto karin, robot samayn, muuqaal duubis iyo jarjaris, taas oo la baray arday isugu jirta haween iyo rag. waxaana goobta lagu sameeyay bandhigan ka hadlay ardaydii wax la baray. xirfadda aan barto waa graphic design runtii aad ayaan ugu faraxsanahay maanta oo ah taariikhda 15 bisha July oo ku beegan maalinta xirfadda dhalinyarada adduunka. halkan waxaan u joognaa inaan maanta ku soo bandhigno xirfadaha aan baranay qaybaha kala duwan ee macadka iyo ardayda iyo macallimiinta. waxaan halkan u joognaa maanta inaan halkan ku soo bandhigno xirfadaheeni aan baranay. magacaygu waa Shukri Cabdullaahi Yelxo, dhigata Hano Academy, qolada multimedia barata kana barata graphic design-ka, multimedia dhammaan noocyada uu ka kooban yahay. waxaan nahay ardaydii fursada u heshay sanadkii bilihii u dambeeyay, marka haddan xirfadayna ayaan ku soo bandhigaynaa meesha tani. macallimiinta iskuulka Hano Academy ayaa sharaxay xirfadda ay bareen ardaydan la tababaray. waxaan ka mid ahay macallimiinta wax ka dhigta macadka Hano Academy, khaasatan qaybta ama departmentiga engineering-ka ama construction-ka. qaybta engineering-ka ee Hano Academy waxay bixisaa koorsooyin fara badan. koorsooyinkaas waxaa ka mid ah painting-ka, rinjiyeynta, qaabka wax loo rinjiyeeyo. waxaan ka mid ahay macallimiinta STEM wax ka bixiya. runtii waxaan ardayda u tababarnaa robotics yar ayaan ku tababarnaa, isla markaasina qabanaya shaqo cayiman. ardaygana waxa waaye loona siinayo inuu criteria markaas awaamir u siiyo. maamulka iskuulka ayaa sheegay in maalintan ay u xusayaan si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaal ah. waxaan ka mid ahay horodeynada macadka Hano Academy. maanta waxay ku beegan tahay 15 July oo kulli dunida dhan looga dabaaldegay maalinta xirfadaha dhalinyarada ee adduunka, World Youth Skills Day. Hano Academy maanta waxaan qabanay event oo ay ardaydii macadka wax ka dhigata iyo qaarkood macadka ka qalin jabiyo xirfado bartay ee soo bandhigeen xirfadaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cunno karintii, electrician-kii, solar-kii, graphic design-kii iyo video editing-kii iyo sidoo kale make-up-kii iyo ilaansaarkii. ardayda ayaa uga qayb qaadanaya dhammaan skills-kay leeyihiin si ay u soo bandhigaan ayagoo badanaa u wada shaqeynayeen as group oo waxyaabihii ay barteen ay soo bandhigayeen. waxaan ka mid ahay howlwadeenada Somali STEM Society. STEM waxay u taagan tahay Science, Technology, Engineering and Mathematics. shanta xirfadood ka mid ah ay soo bandhigayeen dhalinyarada maanta kaga qayb qaadanaysa STEM iyo Hano Academy ay soo bandhigayeen maanta xirfadayahanada adduunka dhalinyarada. hadda waxaynu daawanaynay oo teamka lagu tababarayay 3D printer oo qaab fogaan aragga lagu tababarayay. wuxuu soconayaa ilaa 2 July dhamaadkeedu soconaya tababarkaasi haddii Ilaahay idmo. waxaana ku soo bandhigi doonaan maanta finalka ee Somali STEM Society Summit-keeda 2022. Cabdullaahi Axmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.